munaasabad lagu xusayay maalinta dhirbeerista oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. munaasabada lagu xusayay maalinta dhirta Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku-meelgaarka dowlad goboleedka Jubbaland. munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere, golaha wasiirada xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland iyo waliba ururada bulshada. ugu horeyn waxaa munaasabada daahfuray wasiirka deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Jubbaland mudane Caydiid Suleymaan Xaanshi. maanta waa 17 Abriil sanad walba waxaa la xusi jiray 17 Abriil maalinta dhirta oo heer caalami iyo national level labadaba ah. sida awgeed waxaa maanta sharaf noo ah muddadii burburka ee dawladdeennii hore burburtay kadib in ay maanta noqoto maalintii koowaad oo xuskaasi uu ka dhaco dowlad goboleedka Jubbaland. sharaf weyn bay noo tahay. waxay fursad u tahay dib u nooleynta deegaanka iyo dhiraynta dhulkii muddadii burburka dhaawaca weyni ka gaadhay dagaaladii sokeeye iyo ganacsiga sharci darrada ah ee dhuxusha. sidaa awgeed maanta fursadan annaga oo ka faa'iideysan doona waxaan idinku furayaa in uu inoo furan yahay shirku. sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay Professor Cabdi Samad isagoona u sheegay bulshada reer Jubbaland muhiimadda ay dhirta u leedahay. waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta ay tahay maalintii dhirta. waxaan aaminsanahay dhirtu inay tahay noole innaga inala mida sida bini aadamku uu ugu baahan yahay nolol in ay iyaguna u baahan yihiin innaguna nolosheennu ay ku xiran tahay dhirta. waxaa ardada loo dhigaa bini aadamku ama xayawaanada kale ee noolaha ah waxay qaataan oxygen waxayna soo sii daayaan carbon dioxide, laakiin dhirtu waxay balance garaysaa carbon dioxide-ka ayay qaadataa. ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere isagoona bulshooyinka reer Jubbaland u sheegay faa'iidada ay leedahay dhirta ugana digay in dhirta la dabargooyo. maanta maalinta dhirta ee 17 Abriil waa maalin qiimo iyo qaaya gaar u leh shacabka reer Jubbaland gaar ahaan sababtoo ah dhirtu waa nolosha. mar haddii la ogaado la go'aansaday in la ilaaliyo xuquuqda dhirta iyo deegaanka waa guul ee Jubbaland gaarta waay. Jubbaland waxay soo jeedaa ilaalinta dhirta iyo deegaanka xuquuqdooda. dhir la'aan ma noolaan karaa. haddaan ogaanay waan dareennay waan garannay waxaan ku jirnaa la dagaalanka cid alle ciddii dhibaatayso dhirta iyo deegaanka. Khalid Cabdi Axmed, Som News TV, magaalada Kismaayo.